haddii ay dhici weydo oy maanta tii hore tanna ku biirsanto waxaad ogaataa in caasimaddu yeelanayso 2 maayir iyo 2 maayir ku-xigeen waan cid gaara iyo tala lagu soo jaray hotel Al-Hayaat aan caasimadda lagu maamulay in la doonayo mooshin in la soo dhigo bisha labadeeda mooshinkaasi waa xaaraan raali kama nihin waana arrin xun oo caasimaddu ku kala tagayso duqa caasimadda waxaan leeyahay campaign-kii intaanu iman waxaad ahayd ninka qura ee caasimadda oo dhan aabbiyo hooyo wada ah ee dadku u siman yihiin campaign-kii wixii ka dambeeyey xogaal baynu isku nahay oo dhaawacyo badan baa hadalladaadii soo gaarsiiyey wanaaggii iyo meeshii lagu gaarsiiyey qoladii meydku ka dhacay waxay idhaaheen hadduu sii go-ay weli waxa socda oo aanu dhayanaa nabaradii hore la geystay ee reer Soomaaliland loo kala abtiriyey ee qaranka lagu kala qaybiyey ee madaxnimada lagu yimid ayaan weli dhayanaa maantana hadday tan ku darsanto waa ceeb weyn weey salaamun calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin maanta waxaynu joognaa caasimaddii Somaliland waxaynu ka hadlaynaa danta caasimadda Somaliland waxaan halkan ka hadlayaa 3 qodob waxaan la hadlayaa duqa caasimadda waxaan leeyahay aad iyo aad buu dadku kugu hanweynaa muddadii aad shaqaynaysayna wax badanna waad qabatay bilaadanna waad haydo wax badan ood qaladayna waynu isla ognahayoo way dhacday laakiin intaad qabatay baa iyaduna aad u badan oo lagugu ogol yahay duqa caasimadda waxaan leeyahay campaign-kii intaanu iman waxaad ahayd ninka qura ee caasimadda oo dhan aabbiyo hooyo wada ah ee dadku u siman yihiin campaign-kii wixii ka dambeeyey xogaal baynu isku nahay oo dhaawacyo badan baa hadalladaadii soo gaarsiiyey wanaaggii iyo meeshii lagu gaarsiiyey qoladii meydku ka dhacay waxay idhaaheen hadduu sii go-ay maanta xantaas suuqa soo gashay hadday dhab noqoto ood maanta weji wanaagsan kaga tegi weydo haddii aad tahay duqa caasimadda cid kaa codsatay inaad naga tagto weliba dad badan oo hadlaya waxay ku lahayn noo joog adaa goostay go-aankan adaa gaadhay laakiin waa inaanay noqon ayax tag eelse ka teg waxaan ku leeyahay adiga golahaasoo ishaysta oo weliba maxaan ku dhahay ilaa madaxweynihii wakhtigaa joogay uu ku taliyey ama uu awooddiisii oo dhan geliyey sidaad adigu u noqon lahayd duqa caasimadda ayuu ka shaqeeyey maanta ilaa imika adiga aad duqii caasimadda waxaan leeyahay golahaasoo midaysan oo sidii imika yahay si ka wanaagsan inuu yahay mooyaane ha ka tegin baan leeyahay midna waxaan leeyahay madaxweynaha Somaliland miis bay ku wada fadhidaa madaxweyne xantani soo gaaraysa hadday dhab tahay annagu kaama filayno madaxweynihii Somaliland baa tahay aad baan kugu niyadsannahay weliba dhaqankaaga inkastoo inaan inagu isaqoon inta la iga kaa sheegay nin waxa tahay aan dhib badnayn laakiin waxa la leeyahay wuxuu leeyahay qolooyin ka hooseeya oo dhibaatada dadka iyo caasimadda ka shaqeeya iyo dalkaba kuwaana inaad iska fahantaa dan bay noo wadato maanta adaa madaxweynihii dalka ah waxaan leeyahay madaxweyne caasimadda maanta wada noolaanshaheega iyo inay dhinac u wada jeedaan Somaliland oo dhan bay dan u tahay madaxnimadaaday dan u tahay isku haynta ummadday dan u tahay Somaliland maanta tii meel ku kala tegaysay maaha waa tii iskaashan lahayd cadowgeeda u midoobi lahayd colaadaha iyo dhibaatooyinka ku taaganna dhinac uga soo wada jeedi lahayd weeye taana waxaa lagu helayaa waa kolba si aad u maamusho madaxweyne waxaan aad iyo aad uga xumahay in la yidhaaho madaxweynuhu wuxuu yidhi intan maqanayo hawsha sii kala hagaaji oo yaanan ugu imanin ku-xigeenkaagoo ku-xigeenkaagu muu codsan dee isagu inuu shaqada ka tago sidii uu ummadda ugu shaqaynayay baan ugu shaqaynayaa buu leeyahay weliba han buu leeyahay inuu ku bedelo taasina waxay ku xidhan tahay 17 xubnoodeed ka midka tahay hadday ka ogolaadaan iyo hadday ka diidaanba inkastoo la xumeeyey oo muddooyinka dambaba si qaldan loo maamulayay
laakiin waxaan leeyahay madaxweyne aad iyo aad baan uga xumahay in maanta la yidhaaho mooshin sii geeya inta maqanaha 75 oday wax ka badan oo Sacad Muuse baa kula ballansanaa waad ka tagtay oo waxay dhaheen kulley shaqo u baxay oo idin soo noqonaya laakiin intaad maqan tahay inaad hawl sii fuliso dhibaato badan bay keenaysaa madaxweyne waxaan ku leenahay sidii Muuse haddaanad yeelin yaanay ummadda shacabka Somaliland ee maanta ku midaysan maxaan ku dhahaa caasimadda yaanay kaa kala tegin adigana dhibaato kugu noqonin maanta caasimaddu Somaliland kala badh baa degan waynu sognahay Somaliland marka loo qaybiyo 50% waa inta caasimadda degan wanaaggeedu wanaag buu ku yahay kala daadsanaanteedu iyo xumaanteeduna dhibaatay kugu noqonaysa madaxweyne anagu nasteex baan ku nahay waxaan nahay odayaashii caasimadda qayb ka mid ah waxaan ku leenahay hawsha aad baan uga xunnahay ayaanay imanin waxa xilligaana soo kiciyay waanu saacadda u hadlaynaa waxa weeye damqasho aanu ka damqanayno inay caasimadda iyo isku haynteeda dhibaato soo gaadho caasimadda looma sinna cashuur bixinteeda waynu sognahay laakiin waxa loo simeeyaa wadaaggeeda waana la isku ogol yahay saasaa dadku isku jecel yahay ninna si gooni uma xisaabtamo taasi waxay u baahan tahay si ay u daayinto inaan dadka la kala jabin inaan dhibaato laga dhex samaynin inaad ummadda adiga maanta midida daabkeedii hayee aad isku hayso ood maanta Somaliland badbaadisaa lagaa doonayaa aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaan saxaafadda halkan imika codka nagaga duubaysa iyo intana daawad doonta ee Somaliland ka nacaysaba waxaan leenahay iyaynaan waxaasoo kale dhexdeena imanina madaxweynahana loo nasteeceeyo Somaliland sidii la iskugu hayn lahaana aan ku dadaalno aad iyo aad baan u mahadsantahay wabillahi waxaan ka salaamayaa shacabweynaha reer Somaliland dhammaantood meel ay joogaanba caasimadda Hargeysa halkan waxaan iskugu nimid inaan ku qabanno wax ku soo kordhay caasimadda Hargeysa oo aanay dhaqan u lahaan jirin ayaanu damacnay inaan qodob iyo 2 iyo 3 ka taabanno waxaanu halkan soo gudbinaynaa golaha deegaanka caasimadda Hargeysa qabiilamaha waa hal qabiil waa 17 nin oo caasimadda Hargeysa soo wada shaqeeyay dhammaantood abaal baan ugu haynaa waxa ay caasimadda ka qabteen abaal baan ugu haynaa inaka caasimadda hogaaminayay maayarka Cabdikariim Axmed Moogana sidoo ku yimid waa looga sidoo ummadda Somaliland ka codsaday codka waa looga sidii ay ugu hiiliyeen waa looga intii taagtiisa iyo tamartiisa wuxuu ka qaban karay waa qabtay sunna wanaagsan waa dhigay waan tagayaa buuri waad ku mahadsan tahay ducaan kugu dareena waxaan dhici jirin baad samaysay waxaan horan siyaasiga waa iman baad maanta dhigtay xambaa jirta hantaasi wali waxa socda oo aanu dhayanaa nabaradii hore la geystay ee reer Somaliland loo kala abtiriyay ee qaranka lagu kala qaybiyay ee madaxnimada lagu yimid ayaan wali dhayanaa maantana adeetan ku darsanto waa ceeb weyn weey caasimadda Hargeysa uma baahna qabiilo waxa u baahantay midnimo madaxweyne nabaradii ay ku geysteen qoladii dhaqanku ayaan wali alaanka dadka ka dhayanaa ha u noqon tusaalaha kugu filnaato wixii hore wixii dambeeyaanay dhicin in caasimadda sida maqaalka nagu ah inaad tiri intaan maqanahay hawsha la sii dhamaystiro ceeb bay kugu tahay musqaan weyn bay kugu tahay madaxweyne ka horeeyay siduu sameeyay haddaanad yeeli karin 17 inamood ee meel wada jooga isku daa iyagaa garanaya ka u wanaagsan iyagaa garanaysa quruxda ku jirto dadka caqliga leh way garanayaan caasimaddu sida quruxdeedu tahay haddii ay dhici weydo oo maanta tii hore tanna ku biirsanto waxaad ogaataa in caasimaddu yeelanayso 2 maayir iyo 2 maayir ku xigeen waan cid gaara iyo tala lagu soo jaray hotel Al-Hayaat aan caasimadda lagu maamulay intaasaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta halkan waxaan ku qabanaynaa shir jirayd oo aanu kaga hadlayno danaha caasimadda magaalada Hargeysa baryahan sida laga wada warhayo waxaa jiray hadal badan oo in badan golaha deegaanka ka dhex taagnaa arrimahaasoo la siyaasadeeyey oo dhan walba loo jiiday oo loo dayn waayey golihii arrintaa ku shaqada lahaa
oo la farafareeyey oo aad moodo baasho inay imika dhowla tusiyo meel xun ay arrintaa la geliyey oo dad madax dhaqmeeda iyo dad badan ay faraha arrimaha la soo galeen hawshaa lagu talax tegay arrintaa annagoo ah dadkii ka soo jeeday ka damqanayay waayeelka u ahaa magaalada Hargeysa caasimadda reer Hargeysa la oran jiray magaalo loo kala abtiriyo ma ahaan jirin magaalo mid oo dooxa shaxda lagu wada ciyaaray haayeen anagu soo gaadhay oo dad caaniyo biyo ah oo walaalo ah oo naxligan iyo waxaan laga sheekeeyay siyaasadahan iyo waxaan caanteynkeenu intan damba baranay iyo waxa aanay ummaddu aqoon dad isu qalbi xaaran oo reer Hargeysa la yiraahdo ay ahayn waxaana qurux badan caasimadda in sideedii loo daayo oo ay nooga fayoobato waqanta Hargeysa waa caasimadii dalka weey waa muraayadii Jamhuuriyadda Soomaaliland uma baahna madmadow iyo in aynu qalbo wax ka dhigno la isku xiniyo taabto anaa ka badan iyo anaa kana la yiraahdo wax la geliyo golaha deegaanku inamada walaalaha ay isku shaqada ay isku nafta waxaanu leenahay sidoodii arrintoodii aan la faragelin iyaga go'aamadooda hal loo daayo mas'uuliga ah haddii uu maanta uu gudoomiyihii Cabdikariin Axmed Mooge uu yiri shantaydii sanadood habeen ku dari waayo oo halkaasaan kaga tegay hawshii uu yiri waxa weeyaan inuu si sharaf leh oo xishmad leh oo karaamo leh oo duco leh oo aanu waayeelhaan ugu sii ducayno ina kaan awowga u ahay inuu si wanaagsan uu aanbabaxo oo sharaf leh oo karaamo leh oo ayay ahayd magaalada inaan buuq siyaasadeed liina gelin inaan inamadii la isku cariyo wireyn inaan baasha laga dhigin ficil la gelin ayay ahayd ay ku qurux badnayd arrintaasi inuu si yar xishmadaysan oo sharaf leh hadduu isagu taa gartay waanu ducaynaynaa waxana uu qabanayay nin wanaagsan oo ahaa waanu ku jeclayna kol hadduu isagu door biday uu yiri habeen kuma darayo intaydii shantaydii sanadood oo horena hadalka ololihii ugu daray imagana uu sidaa u dalbooday adeer Cabdikariinow caasimaddu way ku sii ducaynaysaa waxaad yeeshaa adigoo waxay ahayd bilaa xanafa oo inanka yagiyo oo qalbi wanaagsan haddaad xilkaa ka weyn naga doontana aanu sacaabada kuugu tubayno aanu ku sidanayno ilaa heer madaxweyne aanu ku geyn karno oo inanka yagi tahay oo waxqabadkaagina aanu aragnay ayay ahayd inaad dee aad wejiga waa baasaboor wejigu raggu inaad weji wanaagsan aad kula soo noqoto maanta laakiin waxaad moodaa namadii walaalaha ahaa ee guluubkaaga ahaa inaad wan iyo waraabo la iskaga dhigay oo guluubo la isku wada gar hoorayo la iskaadayo rag soo dhex galeen oday dhaqmeed dhex galay baasha la baahiyay si walba looga turjubay in sidii gabagiisii leeyda noqotay ayaa noo muuqata waxaanu waayeelahan maanta ay iga fursan weydaan halka isku soo taagay aniga salaadinta garnaaga fadhida in kal haddaanu nahay dadkii waayeelka ahaa ee caasimadan Ilaahay ku dhaqay inaanu baaq dheer halka ka jeedino oo aan caasimadeeni khalkhalay naga gelin waxa weeyaan caasimadu waa mara maxamuudiya marada maxamuudiga ana wasaqda ma qarsan karto caasimada Hargeysa madmadow cashuur la kala bayro buuq la dhaliyo maantana waynu ognahay oo dadkeenu waxa noqday hawlihii iyo danii aynu qabsan jirnay iyo nololeheennii aynu ku soo noolaan jirnay haddaynu reer Soomaaliland ama aynu Soomaalinahay faraynu ka qaaday magaalada isku noo siyaasad yar baynu wada jiidaynaa siyaasado la jiidaana dadka ma anfacdo war waxaynu haan jirnay dad xoolo dhaqataa danahooga ku foofa bayladooda kala qabsada dana ku kala wada jeedaynu haan jirnay iyo shaqeeya oo meelihiisa galo ama araba hawdhaf ama meel tago dad waxaynu haan jirnay kala foof taga maanta waynu isku soo wada jeesan tanay noo dhaqayso sida ragga qaar wax u wadaan caruuraheenu ma la doonayeen in wada xal isku galiyo lagu kala yaaca caasimadii la kala bayro ay qolow wax tira ummadina laba xakameyn karo maanta sidaan wax yihiin waayo dhaqanka wuu batay waayeelkii taladiisii lama dhageysanayo wuxuu ahaa waxa hagaysa siyaasad ba hagaysa qofku wax yar oo arkayo meel ka arkayo
kumaba arkayo anu ayaanu odaynimadaadana ku qiimeynayn waxa kalena ku qiimeynayn hadday talada faraha ka baxdana dee lama soo celin karo kolkaa waxaanu leenahay ha laga daayo oo arrintaa imiga la sheegayo nin baa yidhi gudcur fartaagee baa la yidhi fartaagoo baa loo bixi waxba ma qarsoomaan hadalku iska soo baxo waxa meel la yidhaa habeen la yidhaa amba cidi ku tashataa amba cidi soo baxdo waxa meesha taagan oo hadalkaasi oo meesha laga kaxayn kari waayey in la doonayo mooshin in lasoo dhigo bisha labadeeda ah mooshinkaasi waa xaaraan raalli kama nihin waana arrin xun oo caasimadda ku kala tegayso arrintaasi waa arrin fool xun oo caasimadda ku kala tegayso mooshinkaasi meesha ma qabto mooshin si xalaala hadduu inankaasi meesha uga baxay dee nidaamya sharci baa u yaalla iyo xeerarkooga ha ku dhaqaan oo ha eegaan xeerkaa wixii ka baxsan ma ogolin sidii wax ahaayeen in wax loo wado oo markuu maayarku iscasilo dee waxa dariiq waa jiri jiray dariiqeedii in loo maro sidaa loo maro arrintaana waxaanu leenahay madaxweynaha lagu simo intuu madaxweynuhu dalka kusoo noqonayo arrintaa ha laga daayo oo ha lala sugo haddaanu waayeelnahay arrintaa madaxweynaha waxaanu fariin dheer ugu gudbinaynaa halku joogo mudane madaxweyne arrintaa inaad inamadaa arrintooda arrinkaa cisho hore bay naga basirsee in intaaba dadka dhex warwareegta ma ahayn arrintaasi inaad meesha dhigto raallaanu ku hayna inaad meel wanaagsan dhigto oo dadka oo dadku raallikooda yahay oo aad wax habayso oonan ka tegin oo dhegaha dadka dhegaysatay ayay ahayd arrintaasina waxaan leeyahay ha lala sugo madaxweynihii halkaa ha lagu daayo saasaan leeyahay haddii alla yidhaa arrintaa hadalka waan dheereeyey waxaan waayeelahaan leehun miyaan caasimadda dadka lagu kala kaxayn arrintaa cagta ha loo dhigo arrintaa cagta ha loo dhigo waana salaamantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu